kulanka 24aad kala fadhigiisa lixaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo uu shir gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare Senator Abshir Maxamed Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Senator Mawlid Xuseen Guhaada. ajandaha kulanka ayaa ahaa akhrinta labaad ee sharciyeedka batroolka waxaana golaha hor yimid wasiirka batroolka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Mudane Maxamuud Cabduqaadir Hilaal iyo xubno kale oo ka socday wasaaradda batroolka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga kheyraadka qaranka kaabiyaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka golaha aqalka sare Senator Ilyas ayaa ka hor aqriyay warbixinta akhrinta labaad ee sharciyeedka batroolka golaha hortiisa si waafaqsan qodobka 45aad faqradiisa koowaad ee xeroosaadka aqalka sare isaga oo ina faray in aan uga howlgalno hindis sharciyeedkan si waafaqsan xeroosaadka golaha aqalka sare. intii aan haynay marxaladihii uu soo maray hindis sharciyeedkan waxaa ka mid ah 2 November 2019 guddiga wuxuu la tashaday ama uu ka tashtay sida ugu habboon ee looga howlgali lahaa hindis sharciyeedkan. isla November 13keedii guddiga isaga oo kaashanaya garyaqaanada aqalka waxa uu akhriyay qodobada hoos ku xusan ee qodobka 1, 3, 5, 6, 7, 9 iyo 10 ee xeerka ama hindis sharciyeedka shidaalka. isla November 25keedii guddiga wuxuu sii waday akhrintiisa hindis sharciyeedka isagoo gaarsiiyay ilaa qodobka 18aad. 7 December guddiga ayaa kulan ku yeeshay si uu u dhameystiro magaalada Nairobi isagoo wax ka bedel iyo akhrinba ku sameeyay mar kale qodobada 1, 3, 9aad, 20aad, 24aad, 25aad, 29aad, 33aad, 34aad iyo 54aad. isla markaasna wuxuu go'aamiyay in sharcigan meelaha ugu dambeeyay lagu kordhiyo qodobo cusub oo ka hadlaya nuxurka 3aad iyo 4aad iyo qodobka 6aad ee jadwalka heshiiskii Baydhabo oo ahaa wax soo saar wadaaga. isla December 8 2019 guddiga waxa uu soo gabagabeeyay akhrintii hindis sharciyeedka wuxuuna su'aalo weydiin ahaa uu la yeeshay la taliye ka tirsan wasaaradda waa Ibrahim Dheere. 14 December 2019 guddiga wuxuu yeeshay kulan ay kaga dhinsanayeen la tashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka maamul goboleedyada. senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa gudagalay intaas kadib dood ku aadaneed akhrinta labaad ee sharciyeedka batroolka iyagoona intaas kadib su'aalo weydiiyay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka. Yuusuf Maxamed Axmed, Galmudug TV, Muqdisho.